قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. كلنتي wanaagsan khayr sharafta leh waa Sayyid Cabdiraxmaan oo idin leh assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu iyo kusoo dhawaada maanta iyo barnaamijka insha Allah khayray maanta barnaamijka waxaan uga hadli doonaa waxaad maqasheen maaragtay dowladahan horumaray sida maaragtay Mareykanka wadamadan EU-ga ruushka shiinaha iyo hindiya hadda iyadana ku daba xigta ayaa waxaad maqashay iyagoo yidhaahda khiyaaray spaceka ayaan tegaynaa ama hawada sare aan tegaynaa. Maraykankuna wuxuuba sheegtay inuu dayaxa tegey maaragtay 69kii. marka bal waxaasoo dhan baan baaraynaa. waxaan insha allahu tacaala maanta isla fiirinaynaa qur-aanku muxuu ka yidhi maaragtay waxa la yidhaahdo spaceka in dadku tegi karo iyo in kale sidoo kale maaragtay in dadku ku noolaan karo meerayaasha kale sida maaragtay Mars ay yiraahdaan meerayaasha kale yaan fiirinaynaa. qur-aanka Allah subxaanahu watacaala muxuu ka yidhi spaceka iyo in dadku ku noolaan karo meel aan dhulkan ahayn. fariid si aad ogtihiin markii Allah subxaanahu watacaala xaawiye aabba aadan uu kasoo tuuray jannadii jannatin cadni ay ku noolaayeen ee la keenay dhulka markii la keenay ee halkan la keenay waxaa la yidhi halkan baad ku noolaanaysaan, halkan baad deganaanaysaan baa la yidhi. qur-aankan idinka sheegi doonaa. sidaa darteed waxaad ogaataan biniaadanku meeshay ku noolaanayaan waa halkan, meesha ku dhimanayaan waa halkan, meesha yowmal qiyaamaha laga soo saarayana waa isla dhulka. marka waxa weeye Maraykanka waxaad maqasheen inay yidhaahdeen waxaan samaynay moon landing, waxa la yidhahda dayaxaan tagnay yidhaahdeen, soo ma aha. sida la isku raacay dayaxa maysan tegin waa been, caddeenaan tusayaa. waxaa jiray nin Hollywooda oo filmaan samayn jiray oo la oran jiray Stanley Kubrick. ninkaasi nin wuxuu ahaa Hollywood oo dhan waa shaydaan ogaada, waa beenaalayaal. noloshan adduunyada ayay dadku u qurxiyaan sida uu shaydaanka Allah inoo sheegay inuu qur-aanka ku sheegay oo Allah qur-aanka noogu sheegay oo yidhi shaydaan wuu yidhi adduunyada ayaanu qurxin doonaa wax walbo maaragtay xunna wanaag baan wax wanaagsan baan uga dhigi doonaa. marka Hollywood shaqadoodu waxay tahay waa shaydaamo inay dadka adduunyada qurxiyaan saana dadku ku wada gaaloobo. soo waxa garateen maaha. kolka ninkaas ayaa wuxuu sheegay 1999kii maaragtay intuusan dhiman ka hor bilo ka hor in hay-adda tarbixiyeenka Maraykanka maaragtay la yidhaahdo NASA, waa macnaha hay-adda spaceka America u qaabilsan, hay-adda NASA inay u timid ay ku yidhaahdeen niyow suuragal maaha dayaxa inaan tagno, dayaxa biniaadan ma tegi karo. waxaa jira si la isku raacay la yidhaahdo Alan Belt oo dhulka korkiisa maaragtay electromagnetic baa maaragtay hadduu la idiin roon yahay ku wareegsan oo ku samaysan. kolka spacekii waxay yidhaahdeen dayax ma tegi karno, maaragtay dayax ma aadi karno. waxay yidhaahdeen adigu waxaad yeeshaa video noo samee oo macnaha wax feega oo beena noo samee inaanu mataqaanaa aanu hadduu ilaahay ku roon yahay ka dhigno video in nooga sameeyo movie wax saasa oo macnaha feeg nooga dhig been noogu samey inaan dayaxa tagnay. kadibna 1969kii isaga ayaa ka caawiyey hay-adda NASA waxaa la yidhaahdo moon landing. soo ma aragtaan ninka Stanley Kubrick videoga waraysigaas bogga Yusuf aan soo gelin doonaa, link aan ka sameynaya videoga Yusuf waa ka asaas YouTube hadday arkaan way tirtirayaan. ninkii dhowr bilood kadib waa dileen. kolka waxa weeye macnaha marka
suuragal maaha bini'aadanka maaragtay inay hawada tagaan waxba kama jiro waxaan oo dhan ee laydin sheegay waxa weeye hadduu ilaahay idiin rooyin waa been waxa koobaad hortaagan wuxuu yahay waxa koobaad hortaagan wuxuu yahay waxaan xataa garaafatiga la yidhaahdo waa amar ilaahay iyagu waxay ka yidhaahdeen wax kastoo kaca uu soo dhaca laakiin waa amar ilaahay waxaad ogaataa dhulku waa xabis baa la keenay bini'aadankan xabis bay ku nool yihiin wakti go-an baana la siiyey saan arki doonno yoomalqiyaamo ayay gaaladu caddayn doontaa in adduunyadaba ajal wakti loo gooyey waktigoodina ay dhammaysteen kolka waxaynay sheegtaan oo dhan waxba kama jiro wakti go-an buu ilaahay siiyey marka dhibaatada koowaad haystaa waxa weeye oxygiinta waxa la yidhaahdo maaragtay dhulkan keliya ayay joogtaa sambabka bini'aadankana ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu u sameeyey inuu neefsado oxygiinta sambabkeennu ama our lungs wax kalama neefsan karaan ka ahayn oxygen kolka dhulka markaad ka baxdo hawada koobaad eed gelaysaa waa nitrogen marka laga baxo waa hydrogen kolka iyo gaasas kale iyo intaasoo gaasoo kale intaasoo hawaa kasii dambaysa midna bini'aadan kuma noolaan karo waa sababta ayna maaragtay markay cirbaxeeno tagaan ay say sheegaan dee ay maaragtay meelaha soo socdaan waxaasna waa ka hadli doonaay ay maaskii oxygen tanka ku xiran bahalka dareyska ay gashan yihiin dareyska ay dharka ay gashan yihiin ee qufulan haan ama oxygen tanka ku dhex jira kolka wax alla waxay sheegaan oo dhan waa been waxba kama jiro marka insha allahu tacaala waxaan akhyaarayn soo hayaa allah subxaana wa tacaala wuxuu ka yiri spaceka bilaadan miyuu tegi karaa ayaan soo hayaa hadduu ilaahay yidhaahdo maasha allah markii xaawiya aadan ilaahay subxaana wa tacaala saaridin carabaabay uu jannadii ka soo qaaday ee uu dhulkan keenay ee halkan la keenay fiirsada waxaa lagu yidhi suurat alacraaf ay ku jirtaa waa aayadda 25aad suurat alacraafna waa suuradda 7aad ee qur-aanka alle wuxuu yidhi subxaana wa tacaala acuudu billahi min ashaydaani rajiim qaala fiiha taxyawna wa fiiha tamuutuuna wa minha tukhrujuun alle wuxuu yidhi subxaana wa tacaala dhulkaan idin keenay ayaad ku noolaan doontaan dhulka dhexdiisa ayaanaad ku dhiman doontaan dhulka dhexdiisa ayaana laydinka soo saari doonaa hadalkaasoo run yahay soomaaligii lama sheegin qof bini'aadana oo space iyo mars iyo waxayna andhehe moonka iyo meelahan waxayna sheegtaan qof bini'aadan oo ku dhintay lama sheegin hadduu xataa ku dhinta meelaha hawada sare diyaarad kula qaraxdo meydkiisa dhulka kusoo dhaca ama badda ku dhaca oo xayawaanka badda ku jira cuna ama berrigu yimaadaa saas way arrintoodu soo ma aragtaan akhyaaray kolka waxay sheegtaan oo dhan waxa weeye waa been Elon Musk waad aragteen inuu yiri maaragtay shuttlekan samaystay space shuttlekan samaystay waxaasoo dhan dadkan hawada u diraya dadkan hawada u dhoofinaya dadkan maaragtaas waxba kama jiro waa xukun ilaahay baa bini'aadanka haysta waxaad ogaataa bini'aadanka markii xaawi aabaheenii hooyadeenii hore aan kasoo farcanay jannada alla kasoo tuuray dembigii ay galeen kadib halkan baa la keenay allana wuxuu subxaana wa tacaala halkan baad ku noolaanaysaan ood ku dhaqmaysaa oo guri iyo nolol laydinka dhigay halkan dhexdeedaanad ku dhimanaysaan waa dhulkan kadibna dhulka carrada ayaa laydinku aasi dhulka isla dhulkii dhexdiisa carrada ayaana alle wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala laydinka soo saari doonaa soo ma aragtaan marka gaaladani waxay sheegtaan macnaha free will inay haystaan xorriyad inay haystaan inay waa been waxba kama jiro nebiguna sal allahu alay wasalam xadiiska markuu yidhi addunya jannatu lkaafiri waa sijnat lmu'min waxa weeye nebigu wuxuu sal allahu alay wasalam adduunyadu waa waxa weeye maxbuuska waa xabsiga mu'minka iyo jannada kaafirka innaga xabsigeenu waxa weeye macnaha dee shareecadii baa ku celinaysa oo wax alla wixii aad doonto adduunyada kuma samayn kartid waa saas weeye macnaha shareecadii allah ku xakameynaysa oo ku qabanaysa gaaladana jannay u tahay oo wax alla waxa rabeen bay samayn fiiri taas waa lidkeeda waa oppositekeeda inagu jannada waxay aakhiro waxaynu rabnaynu samayn dadka mu'miniinta ah allah inaga dhigay kowda alla wuxuu yidhi subxaana wa tacaala lahum maa tashaa'uuna wax alla waxay doonaan ee naftu ku hamido ayaa muslimiintu leeyihiin oo aakhiro waxaad rabtaad samayn wax alla wixii qalbigaa kusoo dhac waad helaysaa laakiin iyaga waa xabsi ay aakhiro ku tahayo dee jahannamo waa xabsi oo kale allana wuxuu ku sheegay subxana wa tacala suurat alxijr inay qolo leedahay maqsinay leedahay gaaladu aakhiro waa jeebaysan yihiin xabsi bayna ku jiraan marka ogow marka nebigu sal lla ly slam leeyahy adduunyadu waa jannada gaalka iyo xabsiga muuminka waa saas gaal waxba kuma haysto marka waxaan doonayaa marka inaan intaa isla aragnaan u malayn haddaan mar kale ku celiyo moon landing waxay dhahaan maraykanka hadday tegey waxba kama jiro waa been erigan nasa oo xarfahan u taagan hay-adda aerospace ee maraykanka
marka la soo qaabiyo luqadda Hibrowga waxa weeyaan to deceive waa khiyaamo waxaan oo dhan waa been waxba kama jiro soo waxa garateen maaha kolka ninkii khashifay inay sheekada ula yimaadeen waa ay dileen waa kaan idin sheegay waraysigiisiina boga Yusuf buu ku jiraa kolka waxaan doonayaa marka aayado kale inaan soo isla spaceka ku saabsan waxa weeye aayadani waxa weeye suuratul ancaam aayadda 125 alla wuxuu yidhi subxaanahu watacaala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام الله سبحانه وتعالى قفك إلهي دوني سبحانه وتعالى إنه هنونيو يشرح صدره للإسلام قلب كيسة حبت كيسة أيا وحلو فرا إسلام لماذا هنونك يهو جانسك إلهي هرجع الإسلام معناه وحويا وسبميشن وهو جانس إلهي قفك الله سبحانه وتعالى ويريدون إنه هنونيو قلب كيسة أيا الله فرا إسلامك سماع الله سبحانه وتعالى وحكله يري ومن يريد أن يضلله ومن يريد أن يضله قفك الله دوني سبحانه وتعالى إنه اللمينا يجعل صدره ضيقا حبت كيس قفك الله دوني إنه اللمينا حبت كيس أياه وحلقة دقاء ضيقا عريري حرجا أو أدق أنا عريري أدق وصدي نفت كل دقاء سوكلا يا لقى دقاء oo macnaha xabadkiisa ba maaragtay waad fahanteen sidii neeftu ku celiso bil ciriiri baa laga dhigaa daqiiqan wax ciriiriya oo xirxiran oo adag baa laga dhigaa marka Allah su'aalo nasiiyo subhanahu wa ta'ala qofka marka gaalka ah ee xabadkiisii laga adkeeyay ilaahay maaragtay uu luminayana wuxuu yiri qofkaasi kaanama waaba isagoo yascadu fi samaai isagoo samada ku dhex socda macnaha qofku alla luminayo xabadkiisa ayuu adkeeyaa oo cidiidina ka dhigaa sidii isagoo ku dhex socda samada halka way la fahanteen soo ma aayadaas okay marka gaalada waxaad ogtiin akhyaaray waxay iska dhigaan maaragtay space walk waxa la yiraahdo ayay sameeyaan waxaad aragteen iyagoo maaragtay hadduu ilaahay idin rooyay ay sameynayaan waxa la yiraahdo space walk soo ma aragtaan spacebook waxa weeye kaanama yascadu fi samaa aayadda quraankeed sidii isagoo la yidhi samada ku dhex soco samadu waa spaceki waa isleeyihiin cirka ku dhex soco la yidhi oo kale soo maaha okay alla wuxuu subxaana watacaala gaaladu dadku ilaahay lumiyey ee gaalada ah xabadkooda waa la adkeeyey xiriirin waa la geliyey sidii iyadoo la yidhi spaceka ku dhex socda waxaad laakiin aragtaan iyagoo sheegta inay spaceka ku dhex socdaan aayaddan space walk waxay yidhaahdaan waa jeestees ay ku jeesteesayaan aayaddan hadda idiin sheegahayay ee ah qofka gaalada uu ilaahay luminayo xabadkoodu adkeeyaa ciridii buuna ka dhigaa wuxuuna ka dhigaa waxaa lagu adkeeyaa sidii isagoo samada ku dhex socda oo kale ereyga yascad waa soomaalin uu yahay waa socod soo ma aragtaan marka iyagu waxay yidhahdeen bal fiiri si ay isku dayayaan aayaddiina beeniyaan waxay yidhahdeen space walk spacekan ku dhex soconnaa annagu laakiin fiirsada marka space kuma dhex socdaan wuxoodu waa been marka koowaad shuttleka ama maaragtay space craft-ka ama dayax-gacmeedka ay saaran yihiin ogaada hadda wixii atmosphere-keena ka sarreeya kora wax ma haahaabaan korna ma aadi karo waa heehaab macnaha korna ma aadi karo hoosna ma soo dhici karo sidaa darteed buu taagan yahay soo maaha kadib maxaa dhacda marka waxaa dhacda xarig baa ku xiran xarig markii ku leeyihin space walk baan samaynaynaa xarig baa iyaga ku xiran oxygen tankana suudka iyo labiska ay gashan yihiin buu ugu jiraa soo khayre ma aragtaan kolka xariggii bay dadka ka qariyaan ku xiraa waxayna iska dhigaan inay spaceka ku dhex socdaan soo ma aragti wuxuu dhan inuu been yahay aan sii soconno marka alla wuxuu subxaana watacaala marka وأساس الله سبحانه وتعالى وهذا صراط ربك مستقيما أن الله سبحانه وتعالى كاسنا واجدك إلهي توصل قفك هنونيني ويا الله سبحانه وتعالى قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون قد حقيقي فصلنا والدين عطيني والدين فصيرني ووالدين كالدقدقني الآيات
aayaadkii liqowmin yadakaruun qoom waan samaya waa loo kala dhigdhiga aayaadkii alla subxaana watacaala isagoo ka hadlaya waa kuwii hanuuniye wey muminiinta alla socdaya alla wuxuu subxaana watacaala lahum daaru salaami kuwaas muminiinta ee la hanuuniyey ee qalbigooda ishrax lilislaam uga dhigay qalbigooda uu jilciyey oo uu dhexgeliyey uu waasiciyey diinta islaamka lahum daaru salaami waxay iyagu u sugnaatay oo heli doonaan aakhiro daaru salaami gurigii nabadgelyada cinda rabbihim rabbigooda agtooda waa aakhiro gaaladana xusuusta alla wuxuu subxaana watacaala suu'a daari baa la yidhi iyaga suu'a daari ereyga daar buuggiigana kitaabka af soomaaliga qur-aan ku jira uu ku jiraa daar waa daar macnaha soomaalida keliya isticmaasha carabtana hadda ma isticmaalaan waa guri weeye macnaha marka alla wuxuu subxaana watacaala kuwaas waxaa u sugnaatay daaru salaami cinda rabbihim rabbigooda agtooda macnaha kuwa muslimiinta way aakhiro alla wuxuu subxaana watacaala wahuwa weliyuhum isagana weligooda ah gaardiyaankooda ka xafidaya ka ilaalinaya waa allah subxaana watacaala muxuuna u ilaalinayaa bima kaanuu yacmaluun waxay samayn jireen darteed muminiin bay ahaayeen ilaah bay rumeeyeen adduunyada xabsi bay adduunyada sijni bay u ahayd adduunyadu braysan bay u ahayd xabsi bay u ahayd shareecada alla kamay tallaabsanayn wax alla waxaa allah amray waa la imaan jireen wax alla wax ka reebena uu ka reebena way ka hari jireen qof dabcanna alla way ka baqi jireen intay awoodaan xusuusta kadib maxaa dhacaya marka kadib waxaa dhacaya marka kuwii gaalada ahaa ee ay oran jiray spacekan teganaya teknolojiyada lahaa iyo jinkoodii iyo balaayadoodii iyo wixii oo dhan iyo jini iyo insiba waa lasoo shiriyey kadib alla wuxuu subxana watacaala waa suurat ancaam oo ah suuradda 7 ee qur-aanka aayadda 168 alla wuxuu subxana watacaala ويوم يحشرهم مالك lasoo shirin doono jamiican dhammaantood marka lasoo shiriyo oo meesha laskugu keeno kadib waxaa lagu dhihi doonaa yaa macshara aljinni yaa macshara aljinni isu soo bixi jinkiyow jinkii badnaayow qad istagtartum waad ka badsateen min alinsi dadkii waad ka badsateen baa layidhi xumaantii bay ka badsadeen fasaadkii bay ka badsadeen adduunyadii bay ka badsadeen dee wayba xukumi jireen in badan oo jinka ka mid a waa qur-aanka meelo kale lagu sheegay suurat alquluuxiya oo kale waxaa jiri jiray insi magan gala jinka soo ma aragtan akhyaaray kolka waxaa la yidhi qad istagtartum min alinsi dadkii waad ka badsateen oo macnaha saasay eedaydeen jinkiyo وقال الأولياء من الإنس كدبنا وحي وقال الأولياء من الإنس كوي يجا إلى لنجري كوي صاحبك الله هاي دتك كتر سنة كوي جنك صاحبك الله ها بلانك كتر سنة وحي رادين يقول هذا وحي رادين ربنا استمتع بعضنا ببعض إله غارب غار كنجا كله أيو كديري أيو كبت صدي oo maaragtay ka xoolo batay oo ka boqortooyo badnaa waxaasoo dhan istamtaca macnaha ay ka raaxo badnaayeen ay ka xoolo badnaayeen waxaasoo dhan bacduna bibacdin qaarba qaarka naga kale waa adduunyada markay joogeen soo ma aragtid macnaha waa kuwani waa madaxdii gaalada ee bilaadanka ay jinka ahaa fiirsadayaa kadibna waxay yidhaahdeen marka aayaddan doonaya waatan inaad aragtaan waxaan idinku yidhi bilaadanka gaaladu waxay sheegtaan xorriyad iyo free will macnaha free will yaroo gaaban baa la siiyey fiir xarig baa ku xiran xarigiina waa ka maanta iyo arkayaan iyagii baana muujinaya adduunyada maaragtay inaysan awood waxba ku lahayn ee wax walba waktigii nolosha intay noolaayeen iyo waxay samayn jireen waxaasoo dhan inuu ilaahay siiyey waxay yidhaahdeen wabalagnaa ajalana waana gaarnay rabbi ajalsii iyo waktiga aad noo goysay inaan noolaano oo maanta maxkamadii baadna keentay alladii ajalta lana taasoo ah ajashii ama waktigii aad noo goysay annaga waktigaad ilaah subxaana watacaala adduunyada nagu siisay waanu soo dhammaysanay waanu gaadhnay halkanaa nimid maanta miyay taa ogol yihiin maanta miyay odhanayaan nimcadani waxaan ilaah baana siiyey wakti go-aan baan leenahay saas shaydaan markuu yidhi qaala faandirni ilaahu iga dhig kuwa dib loo dhigo waxaa la yidhi waxaan dib kuu dhigay ilaa waktin macluum wakti go-aan baan ku siiyaa la yidhi marka waxaan nool oo dhan ee jiniyo insiya maaragtay gaaladan weliba gaaladan xun waxa weeye waxay haystaan baa iska yidhi awoodda ilaahay baa le wakti go-aan baa la wada siiyey mana rumaynayaan maanta laakiin maanta fiirisay u hadlayaan marka waxay yidhahdeen ilaah waktiganaga aadna siisay waanu soo qaadanay ead noo goysay maantana waana kan halkaanaan taagannahay kadib qaala alle wuxuu ku yidhi subxaana watacaala annaaru mathwaakum waa yahay naar baa gurigiina ah
cadaabkaad gelaysaan baa la yidhi maanta khaalidiina fiiha idinkoo ku waari doona weligeed naarta dhexdeeda ilaa maa shaa allah intuu ilaahay doona ma ahane alle wuxuu kusoo gebagabeeyey aayadan ina rabbaka xakiimun caliim rabbigaana waa xikmad badane cilmi badan so waxaa garateen ma ah alle wuxuu yidhi subxaana watacaala haddaan sii wadano wakadalika nuwaliya bacdu daalimiina bacda saasoo kalean daalimiintii weli uga dhignay saaxiibo iyo kuwa xukuma uga dhignay qaarba qaarkooda kale daalimiinta wakadalika saasoo kale nuwali yaan weliyo uga dhignay kuwa macnaha la xukuma kuwa madaxuwa kuwa saasa macnaha iyagiibaa isxukumaya bacdu daalimiinta qaar ka mid a bacda kuwooda kale waayo bimaa kaanuu yagsibuun waxay samayn jireen ee kasban jireen markay adduunyada joogeen soo ma aragtid kadib jini insigii gaalada ahaa uga hadda waa la kala xukumay addoomadan kuwan waa kuwii gaalada ahaa jini insigaha ayuu marka alla la hadlaya subxaana watacaala waxaa la yidhi yaa macshara aljinni walinsi kulankan jin iyo insiyow alam ya'tiikum rusulun minkum miyaysan idin iman rusul idinka mida idinka waa rusushii alla soo diri jiray jini insiga rusulun minkum rusul idinka ka mid a inta adduunyada joogteen miyaysan idiin iman jini insiyo kulan weynahan dadkan badan ee jini insigohu miyaysan rusul idinka idinka mid a oo luqadiina ku hadlaya oo carabkiina ku hadlaya oo hebel hebel u taqaanaan ina hebel hebel u taqaanaan miyaysan idiin iman yaa lagu yidhi rusushaasoo yaqusuuna idinku akhriyayey oo idin sheegayey oo idinku qisoonayey calaykum idinka aayaatii firi ilaahay baa subxaana watacaala life ula hadlaya gaaladii jini insiga ahayd alle wuxuu ku yidhi subxaana watacaala yaa macshara aljinni walinsi jini insiyo kulan weynahan jini insiyow alam ya'tiikum rasulun minkum miyayna idiin iman rusul idinka idinka mid a rusushaasoo yaqusuuna idinku akhriyaya oo idinka qisoonaya oo idin sheegaya dacwadii hanuunkii waxa dhan kulli wax walba idin sheegaya calaykum idinka idin sheegaya aayaadkayga idinka digi jiray oo idin sheegi jiray miyaysan rusushaasi idiin iman rusushaasoo alla soo hadalka sii wada subxana watacala wuxuu yidhi wayandiruunakum rusushaasi waxay kaloo idinka digi jireen miyaydan iman rusushii idinka digta wayandiruunakum liqaa'a yawmikum haada kulankiinan maanta rusul idinka digi jirte miyaysan hore idinku iman kay Elon Musk u sheegayo arbixiyeenadan iyo waxaan jinka la hadliyo waxaan taajiriintii waxaan oo dhan iyo fiiri waxaan waa beenaalayaal shaydaan bay raacaan iyagii shaydaankii baa maanta la haystaa jinku ogaada shaydaanku waa qayb jin ka mid a waa la haystaa ilaahay baa haysta abuurtay subxaana watacaala wuxuu yidhi miyayna rusul idiin iman idin ka mid a oo aayaadkayga idinku akhriya aayaadkayga idin tusa isla mar ahaantaana idinka diga kulankan maanta allay hortaagan yihiin liqaa'a yawmikum haada kulankiinan maanta way hadleen marka qaaluu waxay yidhaahdeen shahidnaa calaa anfusinaa naftanadii baan ku markhaati kacnay waxay ku markhaati kaceen wax kalaa laga soo hormariyey aan rabo inaad aada u fahantaan waxay yidhahdeen qaaluu shahidnaa calaa anfusinaa naftanadii baan ku markhaati kacnay alle wuxuu yidhi subxaana watacaala waqarradhum alxayaati dunyaa intaan jawaabteedii allay noo sheegin subxaana watacaala inay macnaha isku markhaati fureen oo ay ku markhaati kaceen waxa ay ahaayeen adduunku markii joogaan alla wuxuu yidhi subxaana watacaala waqarradhum alxayaati dunyaa noloshii adduunyada ayaa gaaday oo maaragtay dhagartay adduunyadii baa khiyaantay adduunyadii baa dhagartay ogaada hadda ereyga adduunya carabigii hore waxa weeye tii dhoweyd suurad qur-aankuna ku jiraa waxa dhow baa la yidhaha adduunyadu waa wax dhow wax qiimo lama aha ha isku mashquulin shaydaankii kugu shaqaysan sare dhaadheer iyo lacagii mal waxbaa ka fikirin haddii kale saasaad u hooyi wallaahi kolka waa kan marka jawaabtoodu waa la sheegay subxaana watacaala washahiduu mar labaad baa la soo celiyey calaa anfusihim washahiduu calaa anfusihim naftoodii bay ku markhaati fureen annahum kaanuu kaafiriin in adduunyada markay joogeen ay ahaayeen gaalo lacagtoodii maalkoodii waxoodii oo dhan waxba uma tarin markay meesha tageen yay dhahay ilaahay waktigaadna siisay waan soo dhammaysanay wax walba saas naftanadana maanta waxaan maaragtay markhaati ka nahay inaanu rabbi o raxmaanow ka mid nahay kuwa gaaloobay adduunkana markaan joognay waxay yidhaahdeen gaalaanu ahayn kolka
laakiin maanta waad aragtaa macnaha say u shidan yihiin. Elon Musk waad aragtaa wuxuu leeyahay Marsaan tegi kanaan tegi waxaas istaagiisu ku korsadaa hiina uusan u tegi karin run ahaantii. Waa riwaayad iyo been ay dadku u dhigayaan waxaan westernka iyo Hollywoodka iyo waxaan dhan oo la yidhaahdo kulli waa been. Alla wuxuu yidhi subxaana watacaala aayadii bilowga ahayd في وقال فيها تحيون وفيها تموتن ومنها تخرجون. إذا تكون والله الإنسان بالي الدنيا إذا تكون لمن تونتان إذا اللي تكسر صاري كل إلهي سبحانه وتعالى آيات كلا سوكر رموعي الدنيا دون جبي جد وح كلامها إلا لهو واللعب ماذا دالو هي عيار معاني قال هذه الشيطان كان وحيلو من كرام باللبيان وحيدين الشيطان ودن وابين تاريخ إذين الشيطان وحبا كمان جرو wax alla waxay waa dadka yiri bilaadanku wuxuu ka soo jeedaa ayb fiiri seed ku rumayn qof yiri bilaadanku wuxuu ka soo jeedaa ma taqaanaa ayb soo ma taqaanaa macnaha ayb family waa dadkan maaragtay daayiradan dad way ka hay hore u jiri jiray for example hadda gorilla oo kale ayb family inuu ku jiraan si xalay iyo chimpanzee-ga waxay dheen kan ku soo jeedaa oo waxay qariyeen xaawi aadan yaa ka dambeeya shaydaan waayo shaydaan ma doonayay in dadku ogaadaan dagaalkii dhex maray isaga iyo xaawi aadan iyo wixii dhex maray macnaha uu sababtooda lahaa in jannada laga soo tuuro haddii bilaadanku taa ogaadaan shaydaanka cadowimadiisii arkay wayna ku khilaafay kolka waxaanay sheegaan oo dhan waa been dayaxay tageen waa been spacekay sheegtaan waa been gebigoodu dhan baa khiyaaray waxa waaye waxaad ogaataa waxay ku nool yihiin laay alkadab gebigooda baa alkadab been waa been soo wax garteen maaha marka insha allahu tacaala intaasaa khayra kusoo koobaya maaragta casharkan maanta wixii commentigiina waan soo dhaweynaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu